kulan wacan oo wanaagsan khayrsana dhageysanaysaa idil hantiinba meelbo aad joogtaan waa isniin 13 bisha Agoosto sanadka 2018 arrimahan barnaamijka duhurnimada ku heynana waxaa kamid ah wafdi ka socda dawladda Eritrea oo markii ugu horeysay ka degay magaalada Muqdisho oo sudhaca sarifka lacagta liiraha ee wadanka Turkiga oo gaaray halkii ugu hooseysay haddaba saameyn intee leeg ay arrintaasi ku yeelan kartaa taageerada dhaqaale ee uu Turkiga siiyo Soomaaliya midda ganacsiga ah saameyn weyn kuma yeelan karto oo Turkiga ayada u baahan in airportka iyo dekada uu ka soo galo dhaqaale marka dhanka ganacsiga waxba saameyn kuma yeelan doonto laakiin dhanka gargaarka iyo dhanka taageerada dawladda saameyn bay ku yeelan doontaa hogaamiyaasha labada Kooriyana waxaa la sheegay in markale ay ku kulmi doonaan magaalada Pyongyang waxa kale oo aad maqli doontaan هذا الشيء حاول أنه إشارتنا دولة إثيوبيا تجدنا أنه يقولنا ذلك يجي أنه مجدر كحلينا أردنا وأنه ضمان والله ذلك تجنا تجدنا شوينا قرن عن قبلنا وسراكيل سريع وكتر سنة أورك وانا لف وجاري مقالة هذه سبب وضن كإثيوبيا وهذا هذا هالكاس كل اللي دولة إثيوبيا يطبعا ورك عيارها هالكنه وبي بي سي barnaamijku waxa isku soo dubraday Cabdiqaadir Yuusuf waxaan markii hore ku hormarayna warkii caalamka iyo Axmed Mursal mahadsanid caato faragelinta bangiga dhexe ee Turkiga ayaa caawisay dib u soo kabashada lacagta liirada ee dalkaasi kadib markii lacagtaasi ay hoos u dhacday heerkii ugu hooseeyay inta la ogyahay taariikhda bangiga ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si uu u damaanad qaado deganaansho wuxuu sidoo kale ballan qaaday in hay-adaha maaliyadda ee kale la siin doono dhaqaalaha ay u baahan yihiin xukuumadda ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqdo qorshe howleedkeeda gelinka dambe ee maanta madaxweyne Erdogan oo taageerayaashiisa kula hadlayay magaalada Trabzon waxa uu si kulul u dhaleeceeyay cunaqabataynta uu Mareykanku saaray dalkiisa tüm dünyaya ticaret savaşı açan ve buna ülkemizi de dahil edene cevabımızı yeni pazarlara jawaabta aan siinayno kuwa caalamka ka bilaabay dagaalka ganacsiga kuna soo qaaday dalkeena ayaa ah inaan raadsan doono suuq hor leh iyo xulafo cusub bal eeg waxay canshuurta ku kordhiyeen birta waxaan ka mid nahay ururka ganacsiga adduunka waxa socdana kama mid aha shuruucda ururkaasi ma aha arrin go'aan laga gaari karo ayadoo aan lagala tashan dadka ay khusayso sidaana loogu qasbi karo ben yaptım oldu mantığıyla böyle bir şey olamaz. Xukuumadda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaysa in madaxweyne Moon Jae-in uu kula kulmi doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un magaalada Pyongyang bisha dambe ee Sebtembar. Waa shir madaxeedkii labaad ee ay yeeshaan labadan hogaamiye sanadkan gudihiisa. Waxaa halkaasi laga filayaa in uu keeno hididiilo cusub oo ku aadan hanaanka hubka dhigista wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in ururka Taliban ay si xoogan u joogaan magaalada Ghazni inkastoo ay xukuumadda dalkaasi sheegtay in ay la wareegtay gacan ku haynta magaaladaas dagaalka ka socda magaalada muhiimka ah istiraatiiji ahaan ayaa haatan galay maalintii afraad in ka badan 100 qof oo u badan ciidamada dawladda ayaa ku dhintay xiisadaasi ugu dambeyntiina 9 qof ayaa ku dhintay dab ka kacay isbitaal ku yaal dalka Taiwan dhimashada ayaa waxa dhaliyay sigaar goobta lagu cabay dadka waxyeeladu soo gaartay ayaa ka mid ahaa 36 qof oo laga soo daad gureeyay dabaqa 7 dhismo ku yaal magaalada Taipei warkiina waa naga intaas caato Axmed Mursal had buu mahadsan yahay dhageystayaal imikana u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka وهاجا dhageystayaal goordo waxaad maqli doontaan wafdi ka socda dawladda Eritrea oo markii ugu horeysay ka degay magaalada Muqdisho balse markan saraakiil sare oo ka tirsan ururka ONLF ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee wadanka Itoobiya maalin oo kadib markii ay jabhadaasi ku dhawaaqday xabajoojin dhankooda ONLF ayaa sheegtay in wadahadal ay la leedahay dawladda federaalka ee wadanka Itoobiya haddaba afayeenka ONLF Cabdiqaadir Xasan Xirmoogi oo ku magac dheer Cadaani ayaa kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa waxaana markii hore aan weydiiyay bal waxa markaasi halkaasi u joogaan هذا الشيء حاول أنه إشارتنا دولة إثيوبيا تجدنا أنه يقولنا ذلك يجي أنه مجدر كحلينا أردنا الله والله وأنه ضمان والله ذلك تجنا وأنه شرب وين كقرنا تجدنا شروينا قرن عن قرنا إن تكمل لمديه
soomaali ahaan loo mideeyo siyaasad ahaan loo mideeyo laga wada shaqeeyo gacanta lagu qabto sidaasaan u nimid waxaan doonaynaa dadka iyagu inay shucuurkooda cabiraan oo ay halganka taageerada hayaan muujiyaan oo ay calankii jawxa lasoo wada baxaan oo xafiisyadii furaan oo 15 August aasaaskii halgankan in degmo walba iyo gobol walba shacabka iyaga miyi iyo magaalo beeraley iyo xoolo dhaqatada inay xusaan. intii aad tagteen marka magaalada Addis Ababa miyay jiraan wax wada hadal oo idin dhex maray idinka iyo dowladda federaalka Ethiopia? mas-uuliyiin la soo dhaweysay maan aragnay oo naqaabilay markaan airportka nimid wada hadal yar oo kooban iyo inaan kulamo madaxda sare la yeelan doono maanta iyo berri taasay yaan ku wada hadalay iyo inaan dadkanaga halkan waxaa jooga maamulkii gobolkan halkan u jooga duqeyn badan oo gobolka iyo ganacsatadii xubnihii jabada oo aad ugu badan magaalada Addis Ababa oo garbanayay oo ahaayey muddo badan cadaadis ku jiray iyo shacbi badan oo Soomaali ah oo noo baahan oo u baahannahay halkan jooga iyana inaan arkayno oo kulan weyn qabanayno haddii la yiraahdo. Cadaaniyo qorshihiina markii hore waxa uu ahaa oo aad u ololeyn jirteen in dadka deegaankaasi ay ka go'aan Ethiopia inteeda kale oo muddo aad u soo diriraysay marka mowqifkaasi maxaa iska bedelay? waxa weeye wada hadalka jabhadda iyo dowladda Ethiopia uu bilaabmaya horena waa kii u socon jiray haddana dhinacyo diblomaasi ah ku jira annagu xaaladda oo kacsan iyo arrimaha nabadgelyada oo inay sii xumaadaan aan ka baqaynaan u nimid dadka iyagu inuu saqaxin baan rabnaa dalkiisa inuu joogaan rabnaa colaadaha gaarka ah ee aan qorshaysnayna nagu furan inay joogsadaan baan rabnaa marka wada hadal yaa dhici doona oo noloshii dowladda Ethiopia dhex mari doona kaasaa lagu falanqeynaya arrimaha xuquuqda dadka iyaga arrimaha khayraadka. marka taasi ma loo fasirin karaa in weli ay idinka go'an tahay inaad doonaysaan inaad ka go'daan Ethiopia inteeda kale? iyadoo arrinta ay ka talinta anagu u dagaalamayay ay ka talinta shacabka go'aanka iskale waxaan rabnaa in go'aanka shacabka iyaga uu qaato shacabka in fursad loo siiyo inuu isagu tarshado la weydiiyo way codkiisa arrimaha wada hadalkay ka soo bixi doonaan. dad baa aaminsan in marka la eego xabajoojinta shalay aad ku dhawaaqdeen iyo sida degdega ah aad ku tagteen magaalada Addis Ababa ay muujinayso inaad tihiin dad xildoon ah oo aad doonaysaan inaad ka mid noqotaan maamulka cusub ee dowladda deegaanka marka bal taasina ka waran. jooxa yaqaana sida aan u tahay waxaan u malayn waa kuwa aan taariikhda jooxo iyo barnaamijkeeda siyaasiga iyo dhaqankeeda siyaasiga aan takhasus weyn ku lahayn baan malayn dadka soo yiraahdeen haddii dadka yiri jiro marka waxaan qabnaa maamulku inuu qayb yar oo xuquuqda dadka kamid yahay sidoo yar lagu xallin karo cidii qabatanayna macna gaar ah sameynaynin dadka Soomaalida inay xaq u leeyihiin inay iyagu maamushaan hawshooda in loo maamulo ayna mudnayn diyaarinta dadka naga noo qiimeeyo kursi yar oo 40 sentimitir ah. Abdulqaadir Xasan Xirmooge oo ku magac dheer Cadaani oo ah afeenka ururka ONLF oo isagoo jooga magaalada Addis Ababa qadka telefoonka igu waramayay dhanka kale tan iyo markii ay bilaabatay xiisadda ka taagan deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxa soo xoogeystay hadal haynta ah inay jiraan dad doonaya in deegaanka uu ka go'o Ethiopia inteeda kale haddaba ra'iisul waddanka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maalin ka hor arrinkaasi ka hadlay waxaana uu yiri sidatan በርካታ ሰዎች የመገንጠል ጉዳይ ያነሳሉ dad badan ayaa waxay soo hadal qaadayaan arrinta gooni isu taagga waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo shacabka Ethiopia in qaybaha dalka aanay ahayn sida caleen geed ka daadanaysa oo kale oo qofkii rabo uu caleenta ka daadinayo ma aha rabitaankayga ayaan ku joogayaa marka aan rabana ku tagaya xiriir aad u weyn ayaa ka dhaxeeya shacabka marka waa khalad in loo arko in dalka uu si fudud u kala go'ayo sida aan horey u sheegay haddaan noolnahay Etoobiyaannimo ayaan ku noolaanaynaa haddaan dhimannana Etoobiyaannimo ayaan ku dhimanaynaa marka in qayb ka mid ah Ethiopia la dhaho waan kala tegaynaa taa waxay noqonaysaa riyo aan micno lahayn waxaana hor yaalo inaan dalkeenna ilaashano oo aan horumarino muwaadin kastana xil ayaa ka saaran arrinkaasi ሀገራችንን መጠበቅ ማስፋት ማሳደግ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ነው وهاجاك dhageystayaal markana magaalada Muqdisho waxa saaka ka digay wafdi ka socda dawladda Eritrea uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi Cusmaan Saalax iyo waliba sidoo kale taliyaha madaxweynaha waddanka Eritrea Yemen Gebreb waxaana garoonka magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay ra'iisul Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad wafdiga Eritrea ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee markaasi Soomaaliya booqdatan iyo markii waddanka Eritrea uu ka go'ay Ethiopia inteeda kale hore madaxweynaha Soomaaliya ayaa u tagay magaalada Casmare ee waddankaasi halkaasi oo heshiisyo dhowr ah uu kula soo saxiixday dhigiisa waddanka Eritrea Siyaasa Foorqe hadaba wararka umurtaasi ku saabsan waxay noo hayaan wariyahayaga magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan oo imika qadka telefoonka si toos ah ugu jira Ibraahim aad yaad maqlay Soomaali wanaagsan bal inoo waran أنا نيروبي
ibraahim waan ku maqlaya haddii aad maqlayso bal inooga warran booqashada wafdiga ka socda Eritrea ee tegay magaalada Muqdisho. وهاجا dhegeystayaal Ibrahim dib aynu ugu laaban doonaa haddii ay beedmo halka dhegeystayaal aan nagala socotaan waa BBC markana haddii ay eegna dhanka ay magaalada waa wadanka Turkiga aan yiraahday bangiga dhexe ee Turkiga ayaa sheegay inuu qaadayo talaabooyin lagu joogteeyay xasiloonida dhaqaale ee wadankaasi kadib markii uu hoos u dhacay sarifka lacagta liraha oo gaaray meeshii ugu hooseysay abid warkaasi ayaa xooga markaa xoogaa culeys ka fujiyaan yiraahday lacagta liraha ee wadanka aan yiraahday Turkiga oo halkii dollar imika la sheegay in lagu sarifayo 7.24 haddaba Turkiga waxa uu ka mid yahay wadamada dhaqaale ahaan taageera Soomaaliya saameynta uu ku yeelan kara dowladda Turkiga dhaqaalaha ay waliba taageerada ay siiso dowladda Soomaaliya iyo waliba sidoo kale dhinacyada ay saameyn kartaa in wax ka weydiiyay Xasan Aadan Hoosow oo ah dhaqaaliyahan ku nool magaalada Edmonton ee wadanka Canada. Turkiga laga bilaabo sanadkii 2011 Soomaaliya ay u gashay si xoog leh marka dhowr meelood bay Soomaaliya raad uga yeelatay dhaqaale ahaan qaybta koowaad waa qaybta gargaarka qaybta labaad waa qaybta ganacsiga sida maalgashiga airportka iyo dekada oo kale ay ku sameysay dhanka kalena waa dhanka saaciidada dawladda marka laga eego dhanka militariga iyo ayagoo budget ahaan kaalmeyn jirtay marka saameynta ay ku yeelan karto midda ganacsiga ah saameyn weyn kuma yeelan karto oo Turkiga ayada u baahan in airportka iyo dekada uu ka soo galo dhaqaale laakiin midda ay saameynta xoog leh ku yeelan doonto waa laba dhinaca taageerada dawladda ay siinayso dhanka militariga sida saldhigan ciidamada lagu tababarayo sanado ay dawladda siin jirtay budgetka ay ku kaalmeyn jirtay dhanka gargaarka saameyn xoog leh bay ku yeelan doontaa. maxaa lagu qiyaasi karaa marka dhaqaalaha uu Turkiga ku bixiyo Soomaaliya sanadkiiba sida ay mar hore dawladda sheegtay taageerada dawladda waxa ka baxa lacag lagu qiyaaso 5 milyan oo kale oo budgetka lagu taageero taas mar bay sheegtay inay joojisay midda ku baxaysa saldhiga militariga ayaguna waa lacag aan sidaas u badnayn oo 12 milyan ah lacagta isbitaalka ku baxda oo kale sida ay sheegeen waa 80 milyan marka isku dardar lacag 100 milyan sanadkii ka badan ma aha marka Afrika loo eego 19 bilyan oo dollar baa Turkiga ay Afrika isdhaafsadaan oo uga baxda marka Soomaali midda ku baxda lacag aad u badan ma aha boqolkiiba hal xitaa ma dhama Afrika oo dhan dhinacyada saameynta ku yeelan doonto waxa kamid ah dhinaca militariga mashruuca guriyeynta oo kale ay Turkiga hadda ballan qaaday inay Soomaaliya ka fulin doonto waxay noqon doontaa kaasna inuu joogsado taalka iyo arrimaha daawada iyo gargaarka ayadana sidaan hore u sheegay waxay noqonaysaa in ayadana ay joogsato laakiin waxaan u maleynayaa guud ahaan arrintan dhaqaale xumida hadda Turkiga ka socota arrin ma aha oo Turkiga sanadka soo socday kan ka sii dambeeyay ku sii jiri doonto haddii ay xiriirka Mareykanka la leedahay ay wanaajisan xal bay noqonaysaa marka guud ahaan uma maleynayo dawladda Turkiga inay mowqifkeeda ku adkeysanayso waxaan u maleynayaa inay si dhaqsi leh mushkiladan uga bixi doonto badanaa waa mushkilad asaaskeeda uu siyaasad yahay oo haddii ay dawladda dhan dhaqaale ay waxaan ay u xaliso dhaqsi bay xalismayaan marka uma maleynayo wax sii socon doona inay tahay haddiiba markay dhacdo in Turkiga uu jaro dhaqaalaha uu siiyo Soomaaliya maxaa la gudboon baad is leedahay dawladda federaalka Soomaaliya dawladda waxaan u maleynayaa in uu qorshe uga degsan yahay dawladda waxay keentay miisaaniyad oo 274 milyan sanadkiiba ah waxaan u maleynayaa qayb kamid ah dawladda waxay tiri waxaan ka soo saarayaa gudaha marka haddii aad eegto miisaaniyadda dawladda badana lacagta banaanka uga imaanaysa waxa ka badan lacagta gudahan ka soo saarayna ay dheheen marka dawladda Turkiga haddii ay dhaqaalaha ay dalka ku bixinayso ay joojiso waxay noqonaysaa in dawladda ay qorshaheeda ay ballaariso oo ay xoog geliso sidii ay u kabi lahayd waxyaabaha ay Turkiga kabi jirtay sida isbitaalka oo kale waxa ku baxaya sida gargaarka oo kale laakiin midda ganacsiga ah hadda wax saameyn ah kuma yeelan doonto وهاجا dhegeystayaal markana dib ugu laabana magaalada Muqdisho iyo wafdiga ka socda dawladda Eritrea ay gaaray magaalada Muqdisho Ibrahim ayaa markale qadka si toos ugu jira Ibrahim haddii aad maqasho bal faafahinta warkaas ayna sii wafdiga wasiirka arrimaha dibadda Eritrea waxay hadda joogaan xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka halkaas oo ay kula leeyihiin ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo wasiirada ka tirsan xukuumadda federaalka kadibna waxay u gudbi doonaan xafiiska madaxweynaha ee xarunta madaxtooyada halkaas oo lagu wada inay iyana kulan la qaataan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdiga qada ayaa halkaa lagu samayn doonaa wararka qaar waxay sheegayaan in laga yaabo inay ilaa caawa joogaan magaalada Muqdisho goortii horeysay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ka hadlay muhiimadda safarka wafdiga Eritrea ee maanta Muqdisho yimid
uu madaxweynuhu ku tegey dalka Eritrea socdaalkaas oo ay aad u soo dhaweeyeen ayay goosteen inay dhaqso uga soo jawaabaan muhiimadda waxaan baarsan yahay waxa weeye in la xoojiyo xiriirka labada dal ee walaalaha ka dhaxeeya axmed ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa booqashadani waxay daba joogtaa booqashadii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku tegay magaalada asmara halkaasoo heshiisyo dhowra uu kula saxiixday dhigiisa ee siyaas afawarka oo ay ka mid ahaayeen in la bilaabo xiriir diblomaasiyadeed oo labada waddan dhex mara bashiir ibraahim maxamed aadan waryahayaga magaalada muqdisho ayuu kaasi ah oo qadka telefoonka si toos ugu jiray inagana warramayay wafdiga ka socda waddanka Eritrea ee tegay magaalada muqdisho haddaba dhegeystayaasha qodobkaasi ka soo raay dhiibto waxaa ka mid ah farxaan bashiir oo jooga magaalada muqdisho waxa uu yidhi aad baan u bogaadinaya wafdiga ka socda waddanka Eritrea ee gaaray Soomaaliya waxayna ka turjumaysaa buu yidhi xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan Bashir Cali oo isna ka soo qoray magaalada Hargeysa waxa uu yidhi wafdiga ka digay muqdisho kana socday buu yidhi waddanka Eritrea waxba ma soo kordhinayaan wuxuuna khalkhal galiyay buu leeyahay xiriirkii u dhexeeyay wadamada Djibouti iyo Soomaaliya oo ah mid markaasi ahmiyad weyn u leh dadka Soomaalida halka dhageystayaal nagala socotaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba وهاجا dhegeystayaal markana hogaamiyaasha labada Kuuriya ayaa lagu wadaa in bisha September ay soo socotay sanadkan ay ku kulmaan magaalada Pyongyang ee dalka Kuuriyada Waqooyi arintan ay timid kadib markii saraakiil ka tirsan labada wadan ay ku kulmeen xadka ay wadaagaan labadaasi wadan waxaan hadii labadan hogaamiye mar kale kulmaan ay noqonaysaa kulanka saddexaad ee yeeshaan Kim Jong Un iyo waliba soo kale madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in wariyaha BBC-da Laura Baker ay warbixintan inooga diyaarisay afayeen u hadlay xafiiska madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay rajaynayaan in lagu heshiin doono amminta iyo tirada wafdida labada dhinac uga soo qayb gali doonto madaxshireedka ay labada dal yeelan doonaan oo la filayo inuu ka qabsoomo magaalada Pyongyang waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu kulankani qabsoomayo toddobaadyada soo socda shirkani waxa uu noqonayaa kii saddexaad ee ay foolka-fool u yeeshaan labada hogaamiye labada Kuuriya kulankoodii ugu horeeyay ee ay yeesheen bishii Abriil heshiiska ay gaadheen waxaa ka mid ahaa ballanqaad ahaa in gacanka Kuuriya laga dhiga meel ka caagan nukliyeerka labada mas'uul waxay haddana si lama filaan u kulmeen bishii May ka hor intii aanu Kim Jong Un noqon madaxweynihii ugu horeeyay ee Kuuriyada Waqooyi ee la kulma madaxweyne Mareykan ah oo markaasi xilka haya bishii June wixii intaasi ka dambeeyay waxa hakaday wada hadaladii hubka dhigista warbaahinta Kuuriyada Waqooyina waxa ay si joogto ah u qaada dhigaysay culayska uu Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay saarayaan Pyongyang inay ka dhaadhiciyaan sidii ay u joojin lahaayeen qorshahoodii hubka nukliyeerka ay ku doonayeen inay ku samaystaan cabdixaafid oo mahadsan yahay markan haddii aan si kooban u eega ciyaarihii Paul Pogba oo ka tirsan ciyaaryahanada kooxda Manchester United ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo inuu faraxsanaado si uu wax wanaagsan ugu soo kordhiyo kooxdaasi waxaana soo baxay warar sheegaya inuu khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo tababaraha kooxdaasi Jose Mourinho markana waa baafintii baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samiira Cabdulaahi Jaamac mahadsanid Caasha baafinta ugu horeysa maanta waxa ay naga soo gaartay Mahdi Cabdiwahaab Ibraahim oo jooga xerada qaxootiga ee Awbare waxa uu baafinayaa Faadumo Cabdiwahaab Ibraahim waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 2007 hadaba hadii ay maqlayso Faadumo Cabdiwahaab Ibraahim ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Mahdi Cabdiwahaab Ibraahim iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee Awbare xakiimo aadan geedi oo joogta xerada qaxootiga ee Dadaab waxay baafinaysaa Leela Sheekh Axmed waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Sweden 2015 hadaba hadii ay maqlayso Leela Sheekh Axmed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xakiimo aadan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee Dadaab ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 254 Cabdisalaam Maxamed Haashim oo jooga dalka Itoobiya waxa uu baafinayaa dadka kale ah Ilyas Saalax Cali iyo Muxiidiin Saalax Cali waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadii 1985 hadaba hadii ay maqlayaan Ilyas Saalax Cali iyo Muxiidiin Saalax Cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Cabdisalaam Maxamed Haashim iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Itoobiya Cali Cabdirashiid Cabdiraxmaan oo jooga xerada qaxootiga ee Dadaab waxa uu baafinayaa Cabdirashiid Cabdiraxmaan Dhakhtar waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya 1990
2008 haddaba haddii uuna maqlayo cabdirashiid cabdiraxmaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cali cabdirashiid cabdiraxmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee dhadhaab ama taleefanka lambarkiisu yahay 254 luula cabdalla maxamed oo joogta xerada qaxootiga ee awbare waxa ay baafinaysaa faadumo cabdalla maxamed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka imaaraadka sanadii 1991 haddaba haddii ayna maqlayso faadima cabdalle maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo luula cabdalle maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee awbare amaba telefoonka nambarkiisu yahay 259686 faadumo xuseen xasan oo joogto xerada qaxootiga ee dhadhaab waxay baafinaysaa daa'uud ciise xaydar waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Sweden 1991 haddaba haddii uuna maqlayo daa'uud ciise amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo faadumo xuseen xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee dhadhaab ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 254 ruqyo cabdiqaadir xasan oo joogta xerada qaxootiga ee awbare waxa ay baafinaysaa ismaaciil cabdiqaadir xasan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka mareykanka sanadii 1990 haddaba haddii uuna maqlayo ismaaciil cabdiqaadir xasan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo ruqyo cabdiqaadir xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee awbare amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2519 cabdi liibaan guure oo joogo xerada qaxootiga ee dhadhaab waxa uu baafinayaa najmo cabdi liibaan waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kenya 1991 haddaba haddii ayna maqlayso najmo cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cabdi liibaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee dhadhaab ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 254 siihaam cali daahir oo joogta xerada qaxootiga ee awbare waxa ay baafinaysaa mahdi cali daahir waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Faransiiska sanadii 2014 haddaba haddii uuna maqlayo mahdi cali daahir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo siihaam cali daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee awbare amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2519 sahra nuuriye xasan oo joogta xerada qaxootiga ee dhadhaab waxay baafinaysaa maxamed caafi nuur waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 1991 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo sahra nuuriye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee dhadhaab ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 254728 nimco cali dhimbil oo joogta xerada qaxootiga ee awbare waxa ay baafinaysaa yuusuf maxamed xuseen waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada muqdisho sanadii 2007 haddaba haddii uuna maqlayo yuusuf maxamed xuseen amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo nimco cali dhimbil iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee awbare amaba telefoonka nambarkiisu yahay 25265454 cabdirasaaq yuusuf oo jooga xerada qaxootiga ee dhadhaab waxa uu baafinayaa cabdi yuusuf jaamac waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Kanada 2010 haddaba haddii uuna maqlayo cabdi yuusuf amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdirasaaq yuusuf iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee dhadhaab axmed maxamed cabdi oo jooga xerada qaxootiga ee awbare waxa uu baafinayaa sacdiye maxamed cabdi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Sacuudiga sanadii 2007 haddaba haddii ayna maqlayso sacdiye maxamed cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo axmed maxamed cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee awbare amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2519935948 ibraahim diiriye kheyr oo jooga xerada qaxootiga ee dhadhaab waxa uu baafinayaa dadka kale ah farduuso cabdulaahi diiriye aamina cabdulaahi cali cabdulaahi diiriye iyo cibaado cusmaan bayr waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Itoobiya 1993 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo ibraahim diiriye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee dhadhaab kuuse isaaq dhiilduug oo joogta xerada qaxootiga ee awbare waxa ay baafinaysaa xuseen cusmaan idir
waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan muqdisho sanadii 2006 haddaba haddii uuna maqlayo xuseen cusmaan idir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo kuuse isaaq dheelduug iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee awbare amaba telefoonka nambarkiisu yahay 255935 abuukar cali maxamed oo jooga magaalada nairobi waxa uu baafinayaa dadka kale ah hoodan xuseen maxamed iyo hanad xuseen maxamed waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan isla magaalada nairobi haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo abuukar cali maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada nairobi zaynab cabdulaahi axmed oo joogta xerada qaxootiga ee awbare waxa ay baafinaysaa dadka kale ah nuur cusmaan faarax iyo cabdifataax nuur cusmaan waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan isla xerada qaxootiga ee awbare sanadii 2013 haddaba haddii ayna maqlayaan nuur cusmaan faarax iyo cabdifataax nuur cusmaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo zaynab cabdulaahi axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee awbare amaba telefoonka nambarkiisu yahay 251939283745 weliye cali maxamed oo joogta nairobi waxay baafinaysaa aamine maxamuud waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka holan haddaba haddii ayna maqlayso aamine maxamuud amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo weliye cali maxamed iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada nairobi zaynab cabdulcasiis maxamed oo joogta xerada qaxootiga ee awbare waxa ay baafinaysaa cabdulcasiis maxamed aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan muqdisho sanadii 2002 haddaba haddii uuna maqlayo cabdicasiis maxamed aadan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo zaynab cabdulcasiis maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee awbare amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2554 cabdiwahaab abuukar mayow oo jooga shadeer waxa uu baafinayaa muuday cabdiwahaab mayow iyo jiijo maxamed mayow waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan muqdisho 2012 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo cabdiwahaab abuukar iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay shadeer fahmo siraad maxamed oo joogta xerada qaxootiga ee shadeer waxa ay baafinaysaa dadka kale ah khadiijo siraad maxamed iyo aways maxamed nuur waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab sanadii 2005 haddaba haddii ayna maqlayaan khadiijo siraad maxamed iyo aways maxamed nuur amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo fahmo siraad maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee shadeer xabiibo cali maxamed oo joogta shadeer waxay baafinaysaa umeyma cali maxamed iyo cabdulqaadir xuseen abuukar waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan baydhabo 2008 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo xabiibo cali maxamed iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay shadeer cabdulaahi maxamed cigaal oo jooga xerada qaxootiga ee shadeer waxa uu baafinayaa dadka kale ah faadumo afrax cabdiraxmaan raxmo afrax cabdiraxmaan maxamuud cali yuunis rooda maxamed cali dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan gaalkacyo sanadii 2006 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo cabdulaahi maxamed cigaal iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee shadeer amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2519481726 muxidiin aadan maxamed oo jooga shadeer waxa uu baafinayaa sucdiyo aadan maxamed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yeman 1988 haddaba haddii ayna maqlayso sucdiyo aadan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo muxidiin aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay shadeer xaawo yuusuf cali oo joogta xerada qaxootiga ee shadeer waxa ay baafinaysaa dadka kale ah mustaf khaliif cumar raaxo yuusuf maxamuud iyo raweydo cumar ibraahim dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan muqdisho sanadii 2014 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo xaawo yuusuf cali iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee shadeer umeymo faarax haybe oo joogto shadeer waxay baafinaysaa sayid cabdi cabdulaahi iyo raaxo cali mayow waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka norway 2007 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo umeymo faarax haybe iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas